imika inaga dhamaatay ee 11aad kowdeedii amuur ka dhacday magaalada Garbadada ee degmada taasoo ahayd gudoomiyihii degmada oo laba nin ay ku qabteen qori nimankaasoo ka yimiday beerta la yiraahdo Tuurka beertaasoo ka hadhay mashruuci ceel bardaale la oran jiray ee baaba'ay aan imika jirin oo halka iyadu ku hadhay oo markii Somaliland debdegeegii dambe dadka deriska meesha beerta ku yeeshay meesha deganay aanay wax ay iska deysay oo la yiri ay ka doorbiday inay sida dhinacan kale ay u dhacday ay ka dhigto waxay ay ka doorbiday inay dadku nabad ku wada noolaadaan oo dadkaasi ay walaalahooda iskala yaalaan sidaa darteed iyadoo haddana waxay noqotay beertii bahala galeen bay noqotay waata ay ka suurowday in gudoomiyihii degmada loo soo qaato qoriyo waxana mas'uul ka ahaa oo ay dacwadaasi gaadhay ninka jana bilayska haysta degmada gobolka Salel jooga ayay warkaasi gaadhay iyo maamulka Sayla taasina waxba kama ay qaban waaba waxay ka qabtaane dhowrkii nin bilayska ay joogay ninkii ay u soo xidheenna waxa sii daayay taliyaha qaybta waxaan leenahay waxaan ilaalinaynaa inta nabadgelyada oo aan lahayn ayaanay wixii dhacay wax ka sii daran lagu xalilin dhalinyarada iyo dadka waan ka joojinaynay waxaan ka dhur sugaynay inay dawladda sare wax ka qabata arinta waxa imika muuqata inaan wali hadda waxba laga qaban waxaanad ogtihiin maamulka Sayla gobolkaas Salel la yiraahdo dhibta uu ku hayo way ogtahay dawladdu kama qarsoona waxaad ogtihiin xariirad wixii ka dhacay iyo Cabdulqaadir oo ugu darso waxa ka dhacay dawladdu annagu oran mayno yaani dawladda uma soo jeedinayno laakiin waxaan arkaynaa ka gaabinta ay ka gaabisay dadka maamulka xun leh ee ay ku deysay Sayla ta aad baan uga xunnahay sababtoo waxa weeyaan dad aan yaani mas'uuliyad qaadi karin sida aan anagu aragnay haday dawladdu arki weydo waxaan la filayn baa iman doona waxa weeyaan oo sheeganaa taliyaha qaybta mas'uuliyadda iska leh iyo bada saabka jooga Salel dawladdu indhaha way ka meermeerinaysaa waxa laga yaabaa ka meermeerintaasi inay khasaare keento waxaan doonaynaa in si degdega in wax looga qabto maxay ahaydeen inkastoo ay imika ka calool weydsanahayba in wax laga qabto maadaama ay xilliga joogto haddana waxaan leenahay si degdega haddii wax looga qaban waayo wax ka xun baa iman doona saddex qodob baan ka hadlayaa anigu reer Garbadada waan la hadlayaa maamulka Sayla qodob baan kale xukuumadda Soomaaliland qodob baan kale reer Garbadada qodob baan kale hayo waad mahadsantihiin sidaad ugu samayseen oo qaal iyo dheergarad aad ugu samayseen nabadgelyadii u sugteen habeen iyo dharaarba aad u hor joogtiin dhalinyartiinii iyo kuwiinii dagaalamayay mahad baad ku leediin haddaad reer Garbadada amba xagga Ilaahay baad keenaysiin amba xagga ummadda baad keenaysiin dadaalka aad u gasheen wadankiini maamulka Sayla qodob baa leh waxaan leeyahay nin baa yiri waar bal ii faali ina taydani bal iigu faali buu yiri waa la guursan waayay wuxuu yiri gabadhu ma faal xumee dadku say induu leeyahay buu yiri war dawladda Somaliland ma xumee laakiin gobolka Salel maamulka ka jira dadku induu leeyahay baan taa ku dhaafaya dawladda Somaliland hal baan leho maamulka Sayla wuxuu wado war maan sheegaa xareeraha ina lagu qaato arabaqadii buu maamulka Sayla wadaaya haday taasi xaq tahay oo fiican tahayna hal daayo maamulka Sayla haddii kalena dawladda Somaliland si degdeg ah uga qabato anoo ka hadlaya arrinka bil jooga ee madaxii u sareeyay degmada Garbadada dhintay anagu xeer baan leenahay ninka qori lagu qabtay waa nin dhintay islaantiisa agal cad bay sidaa nin dhintay ma anaga naleeyahay nooma tirsan anaga ninkaas ninka laba qori lagu qabtay anaga nooma tirsan islaantiisina gambaan saar anaga nooma tirsan
dee ninka mag sugi lahaa wakhtiga maanta la joogo dowladda somalilan waa la yaqaanaaye bil ninka sugi lahaa nin dhintay ninkii sugi lahay waayo war annaga way naga dhantay odag waxbuu nii qarinaya annagu maanta aan faraha ka qaadaynaa wixii aan hor joognay aan bil sugaynay waan weynay 24 saacadood hadday wax kaga qaban weydo dowladda somalilan annaga nooma taalle somalilan baa u taalla assalaamu calaykum odayaashu ay sheegeen oo taasoo quraanu taabacayno habeen iyo dhanaan miidiyaha waxa ka socda maartay bara saabka maartay silal oo maartay ciidamo wata oo gawaarida la socdo oo ambaaduula dowladda Soomaaliya kama qarsoona way arkaysaa maartay taliyaha qaybta dambi horu noo galay kan maahin odayaal waxba aan dhimin ganacsato iska fadhida ayuu aftuub ku kaxeeyay doorkii hore sayrac ku hayay maantana wuxuu ku tallaabsaday ragga dambiilayaasha inuu maartay badbaadiyo ee laga saaray shalay wadada cad inuu badbaadiyo ku talagal dadka kuwa wadada cad laga saaray kuwii la dhashay jooga annagu hadalka badin maynee waxaan codsanaynaa waxaanoo dhibaata maamulka Soomaaliland ba ka dambeeya haddii kale ha ka soo qaadaan nimanka waa ka bax anigu waxaan baaq u jeedinaya shalanka biliiska qaranka Soomaaliland iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxa weeyaan degmada Garbadar ma joogaan boolis ku filan amniga inay qabtaan waxaan codsanaynaa si degdeg ah in boolis loogu qoro awood u leh dhibaatooyinka jira inay wax ka qabtaan midda kale odayaasha waxaan ku raacsanahay taliyaha qaybta ee gobolka Salel waxa uu hawsha uu ka wada Saylac dadku way ogyihiin bara saabkiina isaga waxba kaga noqon maayo dawal dhimiyay hadalkiisa waxaan leenahay hawsha taliyaha qaybta ma taliya qaybeed oo beelis ka baqabiil way Saylac jooga ka baqabiilna taliya qaybeed annagu aqoonsan man waxa weeye hadii shalanka biliiska iyo wasaaradda arrimaha guduhu arrinka ay sida degdeg ah wax uga qaban waayaan inta wixii ka dambeeya waxaan u maleynayaa mas'uuliyadda iyaga qaaday wixii meesha ka dhacay. Wassalaamu calaykum.